haray qolka wiilal hawiyaa lahaa gabdha hawiyaa ku jiray. صح waxaan ballan qaaday sharad baanu kala dhigan. sharadkaas oo waa markuu diyaaradda ka baaqday dameer calasow isla habeenkii anigu xog muhiim ah ayaan helay. xogtaasna waa idinla wadaagaya. waxaan ku yidhi xogti iyaga uma sheegin. waxaan ku yidhi واجهه قولك واجهه وحش soomaad dhegaysanayn هذا بنا يس fiidowgii horta qofkii dejiyayo qoladii waa carare. qoladiina sharad bay ila dhigtee. qoladii videogaas haddaa aragtaan daarood ismaaciilo qofkii arko bartaa ii soo dhig. anigu waxaan ballan qaaday inaan lacag raaligelina oo xaala oo weliba dee laandheere jeeb weyn baan ahay mid jeeb weyn aan dhiibi doono. iyagiina waxay ballan qaadeen inay inside informationka iga dambayn doonaan oo dee informationkaasi hadduu dhab noqdo aan nin howlo badan og ahay. waa dhunteen gabadhii meesha dejisay videoga dejisay hawiye ahayd waa dhuumatay ma soo dirin. videogiina lama soo dhigin. waktigiina waa dhammaaday. waxaan u gelayaa haddaba xogtii muhiimka ahayd. dameer calasow waxaa loogu yeedhay horta waa ogaadeen dhibaatadu ku hayay madaxda beesha hawiye iyo soomaali oo dhan. heer wuxuu gaaray marwooyinka xasan sheekh maxamuud uu caayi jiray. kuwa habargidir ee madaxda sheeganaya uu caayi jiray. صح wax aanu u reeban ma jirto. ka sii darane ninka maanta koonfur dusha ka maamula waa ismaaciil cumar geelle. ismaaciil cumar geelle waa gaangis weynaaday oon waxba ka nixin. waa nin aan ilaawin godobtiisa iyo qofka maalin erey xun yidhi. maantana waa ninka gacanta ku haya dowladda xamar ka dhisan. ها waata سلام gabadhii yarad waati gabadha yaradka loo siiyey. okay, ninkan markii hore say ka ahayd ma garanano waa loo yeeray dameer calasow. waxaa lagu yidhi dameer calasow ow kaale xil baan ku siinanay. hararaf buu yidhi oo waa soo degay. markuu soo degay sheekadii waa isbedeshay. sawirkii uu xasan sheekh maxamuud la galay dib ugu noqda. sawir uu xasan sheekh raalli ka ahaa ma ahayn. that is number one. that is isu khadarow iyo hayga bixin qof baan dhahayaa. والله معقول nimankan nisa haystaniyo nimankan dadkan baraha bulshada ka caytamo oo dhan oo dowladda ka dhaliila sulka laga wada jarayaniyo والله والله horta maxaa cali aan wallahi I feel sorry for him wallahi cadiim aad uga naxsanaa wallahi waayo qadar ma soo okay may noqon maqlaysaa khadarow waa soo noqday. soo noqon waxaa dhacday markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde fiqi keliyaa soo dhaweeyey iyo dhowr nin oo kale. okay, dameer calasow waxyaalaha maanta aan halkaan rabo inaan ka hadlo waa waxyaale aad kulligiin ka wada heli doontaan. dameer calasow wuxuu ahaa nin miidiya ku jira. wuxuu ahaa nin sheegtay inuu beeshaas hawiye yahay. wuxuu ahaa nin leh xamar anaa u dhashay. صح horta mas-uuliyiinta intaas leeg inaan ahayn ood ku aragteen qofkii ku arkayo madaxdii sarsare ee kale dowladda qofkii ku arkayo iisoo sheega. number one. number two, xilkii uu yidhi waa lay magacaabaya meeluu ku dambeeyey ma aragte. number three, yacni maalin walba magaaladii waa u dhashay buu yidhaahdaa hawiye aan ahay. isaga dhigar hawiye maaha waa la wada ogyahay. waxa yani in maanta inaga daahan dhammaanteen maaha. okay, magaaladii uu tagay isagoo ku baashaalayo oo marmaraya weli ma aragte. waa maya. waxaan ku dhacaan haddaba idiin sheegaya nuxurka sheekadayda. dameer calasow markuu saa uga soo degay baasboorkiyaa laga qaaday. waxaa lagu yidhi laguma xidhaayo. صح meelna uma socotid. mana lagu aflagaadaynayo. bartaadaa fadhi. lacagta tiktokaas iyo youtubekaas aad ka qaadatid qaado. dowladduna xoogaa ha ku siiyaa. shaqo yaroo kale oo fiican bay u yaro heleen. shaqadaas oo ah bim yani dumarka. tusaalaan meel kaaga soo qaadaya inuu ragga madaxdooda ah u keeno. waxaa maalin dhoweyd lagu dacaayadaynayey gabadhii mrs xiis ee uu qabay cawaale in isaga labadooda ay wax ka dhexeeyaan. may ka dhaxaynin. mrs xiis waxa uu baray ninka la yidhaahdo wasiirka maxaa la yidhaha magaciisa ku-xigeenkii habargida magaciisa ishaga waa ilaaweye. magaca buu leeyahay niyo bukhaari. bukhaari ayuu u keenay oo baray. yes waa kaa bukhaari buu baray. marka waxaa la shaqadaa qabso
marmarna xoogaa bay dowladdu kugu soo tuurayaan baasaboorkii baa laga qaaday dhibaatooyinka markaa kale haysta Holland yani baasaboor kuma laha xamar safaarad big ah oo qofkii uu tagi karo sida Mareykanka iyo Canada oo kale maaha qofku hadduu American citizen ama Canadian citizen yahay haddii meel kasta lagugu xidho email baad hoos ka soo diraysaa qofka caadiga ee normalka ahi baabuur buu soo raaci karaa